Jacaylku waa cajiib, waxaana qof kastoo dunidan ku sugan uu wajahaa marxaladda jacaylka. Qofna lagama yaabo in jacaylkaas uu seego, laakiinse waxaa dhacda badi in dadku siyaabooyin kala duwan jacaylkaas uu ku soo maro. Dhowaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka ambabaxday gabadha lagu magacaabo Boqoradda Isteelka. Socdaal waxay ku tagtay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland. Halkaas waxaa ku soo dhoweeyay boqolaal qof oo siyaabooyin kala duwan aragtideeda u jeclaa, balse dadka waxay isweydiinayeen labadii maalin ee lasoo dhaafay. Wiil ku badnaa muuqaalada barteeda TikTok ay soo gelinaysay, waxaana dadka badi arrintaas ay u qaateen laba si. Dadka qaar durbo waxay u fasirteen in gabadhaas ay u socdaashay aragtida wiilka ay jecleed, islamarkaana xiriir jacayl uu kala dhexeeyo wiilka muuqaalada badi maalmihii lasoo dhaafay kala soo muuqanayay. Dadka qaar waxay u fasirayeen arrintaasi inay tahay wiilkan in uu doonayo kaliya in gabadhan si walaaltinimo iyo sidoo kale wanaag iyo xishmad ay ku dheehan tahay in muuqaal uu la duuba, hase haatee uusan jirin xiriir ka dhexeeya labadooda, balse waqtiga walaaltinimada uu isku keenay. Waxaa laga yaabaa adiga in labadaas siyaabood mid uun aad u fasirata arrintaasi, balse arrinta saxda waxaa caddayn kara labada qofood ee laga yaabo in lagu tuhmayo in xiriir jacayl ama mid walaaltinimo uu ka dhexeeyo. Inkastoo jacaylku uu yahay cajiib, haddana siyaabooyin kala duwan qofka marba si uu u abbaaro, balse qofkaad jeceshahay in farxadda iyo sidoo kale wanaaggaad u hayso in dadkaad u soo bandhigto ma ahan arrin xun. Laga yaabee in jacayl iyo sidoo kale farxad xiriir ku dheehan labadooda uu ka dhexeeyo, balse waqtiguusan u saamixin inay soo bandhigaan oo dadku ay u shaaciyaan waxa ka dhexeeya boqoradda iyo sidoo kale wiilkan. Waxaa dhacda in muuqaaladii ugu dambeeyay gabadhan barteeda TikTok ay soo gelinaysay, dhammaantood dadka kommentiga ka bixinaya ay lahaayeen wiilkan waad isku qalantaan, goorma ayuu arooskiina dhacayaa, jacaylkiina goorma ayaad shaaci doontaan iyo sidoo kale arrimo kale. Inkastoo jacaylku uu cajiib uu yahay, haddana qofka waxaa laga yaabaa in jacaylka markuu abbaarayo islamarkaana uu danaynayo qofka uu jecel yahay, in markasta waxa ugu weyn uu ku fikiray ay tahay inuu ku faano ruuxa uu jecel yahay. Way dhici kartaa in xiriir jacayl oo qurux badan labadan qof uu ka dhexeeyo, waa Boqoradda Isteelka iyo sidoo kale wiilkan dhowaanahan kala soo muuqanaya muuqaalka ee ku nool magaalada Hargeysa. Wiilka Boqoradda Isteelka kala soo muuqanaya oo lagu magacaabo Haykal, iyadana waa gabadhii aad taqaaneen ee Boqoradda Isteelka. Waxaana laga yaabaa in labadan shaqsi uu ka dhexeeyo xiriir jacayl oo qurux badan, waqtigii waayahana uu mideyn doono. Waa sida dadka badi ay aaminsan yihiin. Way dhici kartaa in jacayl uu jiro islamarkaana xiriirkooda uu yahay mid dhowaan bilowday, islamarkaana si hoose ay u wada xiriiri jireen, balse ugu dambeyntii marka waqtigu isku keenay ay jeclaysteen in bulshada ay u soo bandhigaan xiriirka jacayl ee ka dhexeeya labadooda. Hadda ma ahan waxaan maqleen hadal iyo sidoo kale fariimo jacayl oo labadooda ka dhexeeya, kaliya waxaanu aragnaa in labada qof ay isugu dhow maanta labadooda ay yihiin. Sidoo kalena waxa ay noqdeen labada qof ee ugu badan ee muuqaalada iska soo duuba labadii maalin ee ugu dambeysay. Tan iyo markii Boqoradda Isteelka ay tagtay magaalada Hargeysa, dadka waxay isweydiinayeen talow meelo kala duwan miyay booqan doontaa oo Hargeysa iyo Somaliland ka mid ah, martiqaadyo kala duwan miyaa meelo kala duwan loogu samayn doonaa, balse waqtigeedii ugu badnaa waxa uu ku soo ilaaday wiilkan lagu magacaabo Haykal oo dadku badi ay leeyihiin ma wiilkan dartiis ayaa magaalada Hargeysa u tagtay. Qalad maahan qofkaad jeceshahay inaad is aragtaan, islamarkaana qofkaas aad tusto dareenka iyo sidoo kale farxadda jacaylkaad u hayso. Waxaan kala jeedaa in dadkaad iska barataan oo muuqaal ahaan aad iska hor imaataan. Wanaag kastoo ka dhexee kara labadooda waxaanu leenahay Allah idinku guuleeyo. Farxad kastay xiriir jacayl oo aad aasaasaysaan Allah idinkaga dhigo mid si qurux badan ku soo dhammaada. Jacaylku waa cajiib, waxaana qof kastoo dunidan ku sugan uu wajahaa marxaladda jacaylka. Qofna lagama yaabo in jacaylkaas uu seego, laakiinse waxaa dhacda badi in dadku siyaabooyin kala duwan jacaylkaas uu ku soo maro. Dhowaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa ka ambabaxday gabadha lagu magacaabo Boqoradda Isteelka. Socdaal waxay ku tagtay magaalada Hargeysa ee xarunta Somaliland. Halkaas waxaa ku soo dhoweeyay boqolaal qof oo siyaabooyin kala duwan aragtideeda u jeclaa, balse dadka waxay isweydiinayeen labadii maalin ee lasoo dhaafay. Wiil ku badnaa muuqaalada barteeda TikTok ay soo gelinaysay, waxaana dadka badi arrintaas ay u qaateen laba si.
dadka qaar durbo waxay u fasirteen in gabadhaas ay u socdaashay aragtida wiilka ay jecleed islamarkaana xiriir jaceyl uu kala dhexeeyo wiilka muuqaalada badi maalmihii lasoo dhaafay kala soo muuqanayay. dadka qaar waxay u fasirayeen arrintaasi inay tahay wiilkan in uu doonayo keliya in gabadhan si walaaltinimo iyo sidoo kale wanaag iyo xishmad ay ku dheehan tahay in muuqaal uu la duuba hase haatee uusan jirin xiriir ka dhexeeya labadooda, balse wakhtiga walaaltinimada uu isku keenay. waxaa laga yaabaa adiga in labadaas siyaabood mid uun aad u fasirata arrintaasi, balse arrinta saxda waxaa caddayn kara labada qofood ee laga yaabo in lagu tuhmayo in xiriir jaceyl ama mid walaaltinimo uu ka dhexeeyo. inkastoo jaceylku uu yahay cajiib, haddana siyaabooyin kala duwan qofka marba si uu u abbaaro, balse qofkaad jeceshahay in farxadda iyo sidoo kale wanaagaad u hayso in dadkaad u soo bandhigto ma ahan arrin xun. laga yaabee in jaceyl iyo sidoo kale farxad xiriir ku dheehan labadooda uu ka dhexeeyo, balse wakhtiguusan u saamixin inay soo bandhigaan oo dadku ay u shaaciyaan waxa ka dhexeeya boqoradda iyo sidoo kale wiilkan. waxaa dhacda in muuqaaladii ugu dambeeyey gabadhan barteeda tiktok ay soo gelinaysay dhammaantood dadka kommentiga ka bixinaya ay lahaayeen wiilkan waad isku qalantaan, goorma ayuu arooskiina dhacayaa, jaceylkiina goorma ayaad shaaci doontaan iyo sidoo kale arrimo kale. inkastoo jaceylku uu cajiib uu yahay, haddana qofka waxaa laga yaabaa in jaceylka markuu abbaarayo islamarkaana uu danaynayo qofku uu jecel yahay in markasta waxa ugu weyn uu ku fikiray ay tahay inuu ku faano ruuxa uu jecel yahay. way dhici kartaa in xiriir jaceyl oo qurux badan labadan qof uu ka dhexeeyo, waa boqoradda isteelka iyo sidoo kale wiilkan dhowaanahan kala soo muuqanaya muuqaalka ee ku nool magaalada Hargeysa. wiilka boqoradda isteelka kala soo muuqanaya oo lagu magacaabo Haykal, iyadana waa gabadhii aad taqaaneen ee boqoradda isteelka. waxaana laga yaabaa in labadan shaqsi uu ka dhexeeyo xiriir jaceyl oo qurux badan, waqtigii waayahana uu mideen doono. waa sida dadka badi ay aaminsan yihiin. way dhici kartaa in jaceyl uu jiro islamarkaana xiriirkooda uu yahay mid dhowaan bilowday islamarkaana si hoose ay u wada xiriiri jireen, balse ugu dambayntii marka wakhtigu isku keenay ay jeclaysteen in bulshada ay u soo bandhigaan xiriirka jaceyl ee ka dhexeeya labadooda. hadda ma ahan waxaanu maqleen hadal iyo sidoo kale fariimo jaceyl oo labadooda ka dhexeeya, keliya waxaynu aragnaa in labada qof ay isugu dhow maanta labadooda ay yihiin. sidoo kalena waxa ay noqdeen labada qof ee ugu badan ee muuqaalada iska soo duuba labadii maalin ee ugu dambeysay. tan iyo markii boqoradda isteelka ay tagtay magaalada Hargeysa, dadka waxay isweydiinayeen talow meelo kala duwan miyay booqan doontaa oo Hargeysa iyo Somaliland ka mid ah, martiqaadyo kala duwan miyaa meelo kala duwan loogu samayn doonaa. balse wakhtigeedii ugu badnaa waxa uu ku soo ilaaday wiilkan lagu magacaabo Haykal oo dadku badi ay leeyihiin ma wiilkan dartiis ayaa magaalada Hargeysa u tagtay. qalad maahan qofkaad jeceshahay inaad is aragtaan islamarkaana qofkaas aad tusto dareenka iyo sidoo kale farxadda jaceylkaad u hayso. waxaan kala jeedaa in dadkaad iska barataan oo muuqaal ahaan aad iska hor imaataan. wanaag kastoo ka dhexee kara labadooda waxaanu leenahay allaha idinku guuleeyo. farxad kastay xiriir jaceyl oo aad aasaasaysaan allaha idinkaga dhigo mid si qurux badan ku soo dhammaada. daya dhibtayda dareema igu dhaqa wanaagida dhaada ima dhiba jacayl dhansiya dhiriyo waxaad say dhiman iga daya dhibtayda dareema